Assalaamu calaykum. Katrina Block oo ah gabadh cilmi baadhe Kanadiyaana ayaa leh 1991 ayaan ka daawaday telefishinka haween Turkiya oo go'aansaday inay xidhaan xijaabka. Xilligaasna waxaan ahaa Kristan, waxaana ay tidhi muuqaalkaas aan daawaday waan ka naxay, calool xumana waan ka dareemay, dumarkaasna waan u dhibray. Sidaan u malaynayayna waxaan aaminay in dumarkaas masaakiinta ah hidahooda iyo dhaqankoodu ay maskax meedh ku sameeyeen oo ay nolosha ka dhaceen sida ay reer galbeed badani aaminsan yihiinna. Waxaan aaminsanaa in islaamku uu dumarka caburiyo, xijaabkuna uu yahay astaan muujinaysa caburinta dumarkaas. Bal u fiirso la yaab ka dhacay 4 sano uun kadib dhacdadaas iyo habfikirkaas aan haystay. waa anigii oo muslimada oo isla xijaabkii xidhanay, isla dumarkii aan aaminsanaa in la caburinayana sidoodii waanigan doorbiday ee tabtoodiisu asturay. Sidaas ayay tidhi gabadhaas Katrina ahayd. waxaa jira muuqaal ay garaadka ku sawirtay saxaafaddu oo ah dagaalka ay ku qaaday xijaabka iyo shareecada islaamka qaybaheeda la xidhiidha anshaxa iyo akhlaaqda laga soo bilaabo kontomaadkii qarnigii ilaaday ilaa iyo maantana, maadaama ololihii galmada aynu hore uga soo faalloonnay filmadii galmada, xorriyadda galmada iyo isqaawinta sidii loo baahin lahaa dhaqaale badan lagu bixinayo si dhaqaale badan looga sameeyo. cadowga ugu weyn ee ololahaas ay yeesheen waxau noqday gabadh muslimada oo xijaaban oo tidhi anigu ma ihi jir soconaya oo indhaha iyo aragtida lagaga dhergayo ka hor inta aan lay baadhbaadhanba, ee waxaan ahay insaan xurmo iyo karaamo leh, sharaf iyo cisi leh, jirhkayguna wuu ka mudan yahay wax bannaanka yaalla oo cid waliba ay aragti kaga dhergayso, wuuna ka qaalisan yahay wuxuu doqon kastaaba indhaha kaga raaxaysto ka hor inta aanu isku baanan. cadowgaas koowaad ee ah xijaabka ee ay yeesheen ololahaasi 2 dagaalba wuu uga baahday. dagaalka koowaad waxa uu noqday in horta dadka aan islaamka ahayn dumarkooda laga ilaaliyo inay fahmaan macnaha xijaabka iyo is-asturaadda si aanay qiimigooda u dareemin. taasina ay sababtay in xijaabka iyo asturaadda adduunka oo dhan looga dhaadhiciyo sidii inuu yahay astaan islaamka uunu gaara oo gabadha muslimadda ahi uun ay is-asturto. dagaalka labaadna waa in gabadha muslimka ah xijaabka laftiisa lagala dagaalamo. markaa dagaalkaas gabadha muslimadda ah dib ayaynu u dhiganaynaa oo barnaamijka kan xiga ayaynu ka dhiganaynaa insha allah, ee aynu soo qaadanno maanta dagaalka ah xijaabka dagaalka lagu qaaday ee muslimiinta loogu gaar yeelay ee adduun weynaha laga dhaadhicinayo inuu yahay calaamad islaam iyo dhaqan bulshada muslimiinta uhuna ay leedahay. haddaba dacal inoo yaro dhiga dhammaanba aayadaha iyo xadiista diinteenna ee daaran xijaabka waynu isla eegno weydiin ah xijaabku ma caado islaamnimo oo bulshada muslimka unu gaaraba, mise waa caado islaamnimo oo aadaminimo oo dadka ku sifaysan sifada insaannimada ee uu ilaahay yidhi walaqad karramnaa bani aadam. waa sifo ay leeyihiin mar kasta oo aadaminimada laga sii durkana isagana laga sii durkayo. ina keena cajaayibta jawaabtan ee taariikhdu ay inoo hayso. inagee taariikhda gabadhaas yurubiyaankaa inooge xataa ka hor soo degitaanka diimaha samaawiga inagee, kadibna dhigmooyinka diimaha yuhuudiyadda iyo masiixiyadda inagee. bal cajaayibta ceegaagta aynu isla eegno. dhigmada ama qoraalka ugu horreeyey ee taariikhda ee la hayo ee ay ku sugan tahay in ay gabadhu asturnayd oo ay xijaab xidhnayd qarnigii 13aad ee miilaadiga ka hor ayay ahayd. waxaana qormada xilligaasa ee la helay ku qoran dumarka aashuuriyiinta ah ee dibadda iyo shaaracyada u baxa waa in madaxoodu u asturnaadaa, maro weyn oo asturaysana ay ku xidhnaadaan. waa in gabadhu xijaabnaataa. dumarkaa dabaqadaha sare ka dhashay ha la qaba ma gashaantiyo ha ahaadeene waa inay xijaab xidhaan oo ay is-asturaan. in ka badan 35 qarni ka hor ayaa hadalkan la lahaa. ilbaxnimadaas aashuur ee taariikhiga ah dumarkoodu waxay ku sheeganayeen xijaabka iyo asturaadda. taas lidigeeda dumarka jirkooda ka ganacsada iyo kuwa addoomaha ama dabaqadaha hoose ah ayaa laga mamnuucay oo laga xarimay dhowrsoonida ah inay jirkooda asturaan oo ay timahooda xijaab ku xidhaan. oo lagama mamnuucin uun ee kuwaas magaalaysatooyinka ay jirkooda ka ganacsada ee xijaabka xidha ciqaab ayaaba loo sameeyey isugu jirta xadhig iyo 50 jeedal oo xanuun kulul ah. waxaana sidaas loo sameynayey si aanay magaalaysatooyinkaasi xijaabka sharafta uga qaadin oo ta magaalaysatada iyo tamaamusani muuqaalka guud aanay uga sinmin. oo xijaabku waagaas waxa uu ahaa calaamadda gabadha wanaagsan ee tarbiyadda wanaagsan soo qaadatay, waxaana uu ahaa astaan muujisa weynaanta iyo maamusnaanta gabadha. heer xataa dabaqadii taliska ahayd ee Giriigii guunka ahaa ay fikraddaas qaateen oo ay gabadha ay ka sharafta badan tahay ka asturnaan badnayd. sidoo kale dagaalka taariikhda caanka ka ee Gilgamesh ee aagga labada webi u dhexeeya ka dhacay marka la muujinayo ee Gilgamesh uu aadayo dhanka ilaahada ay caabudayeen ee la odhan jiray Sidori ee joogtay sida ay aaminsanaayeen darafka caalamka. sida xogta dagaalkaasi ay dhigaysana waxa ay ahayd gabadh camrigeedu uu dhexdhexaad ahaa oo xijaab xidhan. deegaanka raafideenna ilaahadii la odhan jiray Inaana ee markii dambena caanka ku noqotay magaca Ashtar oo loo caabuday inay tahay ilaahada awoodda jacaylka iyo galmadu
badanaa sawiradeeda waxaa loo dhigaa qaab ah inay xidhnayd xijaab oo timaheedu ay qarsoonaayeen, dhar jidhkeeda ka fuqsanna ay sidatay xilliyo kooban marka laga reebo oo galmada iyo waxyaabaha la xidhiidha. daraasadaha lagu sameeyey suugaanta iyo hiddihii Giriigii horena waxaa lagu soo bandhigay in badiba dumarka Giriigga iyo ugu yaraan kuwa dabaqadaha maamuusan ee sare ka soo jeeda astaanta koowaad ee lagu garta ay ahayd asturnaanta iyo xijaabka. marka ay suuqyada iyo meelaha la isugu imanayaanna ay timaha iyo wejigaba soo qarsan jireen, maca niqaab ayay xidhan jireen. dhacdo kale oo taariikhda caanka oo caddayn inagu filan qodobkan igaga siinaysa ayay taariikhdu xustaa oo 166kii miilaadiga ka hor janankii iyo siyaasigii dowladdii Roomaanka caanka ka ahaa ee Gaalos ayaa furay gabadhiisii. oo kaadi tolo gabadhiisa muxuu ku furay maadaama ay guriga ka baxday iyadoo ay timaheedu muuqdaan, isagoo ku andacoonaya inay daahir iyo shamis ka dhigtay wixii mahuraanka ay ahayd inay isaga un la wadaagto. dhammaanba qodobadaas aynu soo xusnay waxa ay inoo muujinayaan in aanay xijaabka iyo asturnaantu ahayn caado ku kooban ummadda diimihii samaawiga ahaa iyo risaaladihii nebiyada ay wax kaga sii hadheen uun, ee ay ahayd caado aadaminimo, caado insaannimo, caado karaamada aadamaha laga dhex arki jiray. in timaha iyo badanaa wejiga la qarsadaana waxay ahayd caadada ummadaha adduunka oo dhan, xataa kuwii ay taariikhda xusto inay cawaan ahaayeen. asturnaantaasi waxay mudatay ammaanta Ilaahay iyo in risaaladaha nebiyadiisa uu ku weyneeyo, waxaana loo badinayaa inuu xijaabku ka soo jeedo risaaladihii samaawiga ahaa ee ugu horreeyey ee idlaaday. sida awgeed xijaabka maanta islaamka un loo gaar yeelo ee cayda looga dhigaa ma aanu ahayn wax exceptional ah ama wax taariikhdu sidii ay u socotay ka duwan oo dhexda kaga soo biiray. oo qaawanaantu asalka ma aanay ahayn ee xijaabka iyo asturaadda ayaa asalka ahaa, qaawanida ayaana ah wax dhexda kaga soo biiray dadka kadib markii aadaminimadii iyo insaaniyaddii qofku uu ku maamuusnaa uu waayey, ee uu maamuuskiisii u arkay hadba jidhkiisu sida uu yahay, dhadigaanshaha iyo fidrada insaanka ah gaar ahaanna ta dumarnimada. asturaadda iyo xijaabashadu way ku lifaaqnayd. markii ay masiixiyaddu soo ifbaxday in dumarku ay xijaabtaan iyo asturnaantu badiba ummadda aad ayay ugu dhex baahsanayd. waxay daraasadaha taariikheed qalinka ku duugeen in xijaabku uu ahaa astaan aadamaha dhaqankooda ka mid ahayd, badiba haddii aanay hiddahooda ahaynna ilbaxnimooyinkii caalamka soo maray ay ku sheeganaayeen. ashuuriyiintii, fiiniqiyiintii, kancaaniyiintii, Giriiggii, Roomaankii, faraacinadii, ilaa xataa ilbaxnimooyinkii shiinayska ahaa. taasina waxa ay meesha ka saaraysaa in xijaabka laga dhigo wax islaamku uu sharciyeeyey oo isagu soo biiriyey, shareecada maxamediyada ahna ka mid ah. asturnaantu waa qayb mahuraan ah oo dhismaha shakhsiyadda qofka aadamaha ah ee insaaniyadda leh ka mid ah, waana sababta ay ummadahaas oo dhammi asturnaanta u weyneynayeen. gabadhba gabadha ay ka karaamada badan tahayna ay uga asturnaanta badnayd, maadaama uu nebigu sallallahu calayhi wasallam yidhi waxaan u imi inaan dhammaystiro akhlaaqda teeda wanaagsanna. xijaabka iyo asturnaantu waa waxyaabaha ugu mudan ee ay diinteennu ku dadaashay rag iyo dumarba. la yaabna ma laha in aynu shareecada xijaabka iyo waajibintiisa ku aragno labadii diimood ee islaamka ka horreeyey ee Towraadda iyo Injiisha ka hor inta aanu qur-aanku la iman ee islaamku aanu waajibin. kitaabka axdiga guunka ama Towraadda ee Yuhuudda qaababka xijaabashada dumarku way kala gedgedisnayd, noocyadiisuna way kala gedgedisnaayeen, si ujeedkiisu mid ayuu ahaa oo asturnaan iyo xushmad ayuu ahaa. timaha iyo jidhka iyo quruxda gabadhana wuu didayey. isla kitaabkaasi waxa uu xusay in ay mamnuuc ahayd in labku ay xidhaan dharka dhadigga, dhadiguna dharka labka. gabadha yuhuudiyadda ahna xijaabka ayuu kitaabkaasi ku waajibinaya. dhammaanba wadaadada yuhuudduna qodobkan way ka midaysan yihiin oo way waajibinayaan. markaynu u nimaadno kiristanka, isaguna la mid ayuunbuu ahaa oo waxay xataa baadiriyadan markii diinta la bedelay sii waday ku andacoonayaan in gabadhu ay isku asturto sida marka ay kiniisadda joogto ay isu asturto si aanay ragga ciidamada ugu kicin. caadooyinka kiristankahi waxay soo gaadheen xataa 1900 muddo qarni iyo sannado yar ka hore ayay asturnaayeen dumarkaas Yurub, xataa kadib 100 sano kacdoonkii Faransiiska ee diinta shaashadaha ka saaray ee wax walba mubaaxa ka dhigay. dadka waa la marsiin waayey inay iska xayuubiyaan ama laga xayuubiyo xushmadda iyo asturaadda maadaama ay ahayd fidro aadaminimo. balse ololihii galmada ee kontomaadkii soo bilaabmay ayaa fidradaas aadaminimo dagaalkaas baan ku qaaday, caado islaamka unku eegna ka dhigay. waynuna ku faanaynaaba inuu innaga inoo gaar yeelay oo caadadaas insaannimo aynaga inagu hadhay si aadamihii kale ayuu ka hor joogsaday. waxaynu ku soo ururinaynaa xijaabku waa fidro aadaminimo iyo caado haween oo ku suntan xushmadda, xurmada, karaamada iyo dhowrsoonida gabadha. mar kasta oo xijaabka ay gabadhu ka durugtaana intaas oo maamuusba way ka xubsiibanaysaa, waana sababta ay dhammaanba ilbaxnimooyinkii hore ee daraf ilaa daraf adduunka ka jiray ugu sheeganaayeen, waana sababta ay dhammaanba waaxaha taariikhda uu xijaabku ugu jiro islaamkuna waa shaxas wanaagsan u sii dhammayska tiray ee uu cirkaas u geeyey, waajibkana uu uga dhigay. mana aanu waajibin uun islaamku ee waxa uu ahaa dhammaystir uu risaaladii nebiyadii ka horreeyey isaga
ku dhammaystirayey oo akhlaaqdaas wanaagsan ku taamyeelayey. mar kasta oo ay gabadhu asturnaanta iyo xijaabka ka fogaataa waa mar kasta oo ay derajo kasta oo maamuusanba ka fogaato. intan ayaynu kaga baxaynaa labadii dagaal ee xijaabka lagu soo qaaday. kii koowaad ee ahaa in loo sawiro inuu yahay caado islaamka uun ku kooban si dadka kale ay uga yaacaan. muuqaalkeena xigana insha allah waxaynu kusoo qaadanaynaa dagaalka xijaabka laftiisa lagu soo qaaday ee dumarka muslimiinta lagagala dagaalamayo iyo mugga uu leegyahay. wasalaamu calaykum.